munaasabad si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabbaas Amiin Cali, taliye xigeenka hoggaanka tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaale Sare Cabdullaahi Yuusuf Cabdulle, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay xarunta taliska ururka 62 ee caafimaadka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankan ayaa muddo 30 casho ah qaadanayay tababar la xiriira maadooyinka kala duwan ee lagu barto duruusta ciidanka xoogga dalka, kuwaasi oo wax badan ka fahmay hanaanka ay ku socotay qaabkii ay casharada ku qaadanayeen iyo habka wanaagsan oo ay macallimiinta u fahamsiinayeen duruusta askarta tababarka loo soo xiray maanta. taliyaha ururka 62 ee caafimaadka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaale Maxamed Shidane Culusow ayaa ugu horeyn ka warbixiyay askarta tababarka maanta loogu soo xiray xarunta taliskaasi. qaabka salaan sharafka wadaniyada shaqooyinka iyo waxyaabo badan oo la soo koobi karo. waxaan ahay dadkii maadaama meel dib u geeyo waa inaan wax ku soo kordhiya maadaama fursad u yeelanay inaan ciidanka xoogga hogaamino waa inay wixii qaranku na baray oo intaas waxyaabo badan la soo maray maadaama in la soo baray inaan dadkii maadaama madaxna warda fursadda maanta ah haysanaa wixii karaankayna wixii la soo baray inaan si ku sii faa'iideeyo. taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabbaas Amiin Cali oo ka hadlay goobta ay munaasabada ka socotay ayaa kula dardaarmay ciidanka in ay ka fogaadaan wax waliba oo dib u dhac u keeni kara qarannimada. waxa uuna tilmaamay inuu tababarkani qayb weyn ka qaadanayo dhismaha ciidanka, wuxuuna kula dardaarmay in aqoonta ay barteen ay uga faa'iideeyaan saaxiibadooda kale ee aan fursadda u helin inay tababarkaasi qaataan. in la yiraahdo tababarkii aan qaadanay kaliya lagu soo koobine in la sii wado maalin walba, jimicsiga subax walba la sameeyo, gaardigii maalin walba la sameeyo, dishibliinkii la akhriyo, wadaniyaddii dadkii la baro, intaan aqoon qoraalkii in la baro. intaasoo dhan waxay u baahan tahay in la joogteeyo. ciidanka wuxuu ku dhismaa waxa weeye tababarka joogtada ah ayuu ku dhismi karaa, laakiin qof iska seexday waa arrintiisii waa wax kale weeye. ururka caafimaadka tihiin aad ka tirsan tihiin, howl gaarna waa leedihiin, tii kale caadigan waa laga rabaa. ilaan adigu goob dagaal baa la aadayaa, caafimaadkiina waad ka shaqaynaysaa, qorigaaduna waa wadataa soo maaha. dagaalkii inaad gasho, ciidankii wixii soo dhaawacmay in mataqaanaa la dhayo, la xiro, dhiibbixii wax socday, intaasoo dhan waxa waaye hawshiin weeye. isla markaa waxaa loo baahan yahay dhinac inaad ka qaadaan dagaalkii haddana. waa fiicantihiin, aad baan idiin ammaanayaa. waxaan jeclahay in la sii wado. macallinka intuu idin baray waa idinku filan tahay hadda. intii kale dhammaystirka taliyaha ururka iyo raggii macallin noqon karo idinka soo dhexbaxa ayaa la rabaa hawsha inay sii wadaan. in la joogteeyo waaye. subax walba askarigu waa inuu soo kaco, jimicsi inuu ciyaaro, uu quraacdo, gaardii uu galo, dishibliin loo akhriyo, taagtiigii la baro. waa howl rootiin iska socdo waay maalin walba. quruxda iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa furaha xasiloonida iyo ammaanka dalkeena, taasoo ay mudan tahay in la bogaadiyo tallaabooyinka la qaaday ee tayeenta iyo sare u qaadida nolosha maskaxda ciidanka iyo wax ka beddelka habdhaqanka iyo tababaradooda. Cumar Maxamed Kulmiye, warbaahinta ciidamada qalabka sida, xarunta taliska ururka 62 ee caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Muqdisho.